الرحمن الرحيم ومقالة مقدشو aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo walaalkay Cabdi Ciise Siyaad Sugulle oo ah in Soomaaliyeed oo runtii gacanta intii ku dhagaan oo meel maray yiri walaalahan raba inaan suugaan uga qayb qaato asaga nooga warrami doono walaalkay soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim qayrabkiina ka ayay hadda qaadka cunayo qarni ka horeeyo qola ka daaweyn baa qisal laga wareystay iga qaata waanad kow bahalkan aad qabxaysaan ee quruxda moodaan ilkaha waa qodqodaya hurdada waad qarweysaa qabsinka waa xidhxidhaya qadadaad cunaysiyo quudka waa yareeya qoyskiyo dhaqaalahana wuu qori dabliyo gaas intee buu qarribay hore intuu qoysaska la diray intuu qadiyey maatada intuu dibad u soo qubay raggan qoriga haysta isbaarada qandooda qada iyo quraac iyo quudu cunama waayinayaanu qaadku kaa maran baa dadka loo qarribaya intee gaari qurux badan oo quud iyo rakaab sida xabad lagu qacshiyo taayiradu qarxeen oo qoladii dul saaray qudhoodii ku waayeen Allahu akbar Soomaali qaablay gidi wada qarribanay qurun iyo dhib jecelay qorraxdii timaadaba lacag qiimo loo adag baan diyaarada ku qaadnaa waxaan gaajo qaadayno oo wax kaaga qabanay oo tuliyoona noqonayn baan ku soo qaadanaayo waan ku wada qamowna Allahu akbar intee gabar qurxoonayd oo qoyskeedu jecel yahay qamaray ina adee qaad baanu wadanaa noo gogol qolkaagii qaxwihiina noo kari hadal lagu qatalay oo lacag lagu qarribayo iyadoon qaadil loo geyn qodobkiiba laga jaray Allahu akbar dumarkii qurxoonaayo qolkoodii ku jiri jiray dibaddu u soo qubay qorrax meelahoo kulo laamiyada qarkooda iyo gambarrada qandooda madaxaa qaar bannaayahoo xishoodba waa ka quustayna bal khasaaraha hadday qof hadduu ka baayacay qiima isku diidaan waaba qurun baqaasiya waaba qaad caseeye war qofkana muxuu yahay caybay ku qubayaan allele anaa kaaga markhaatiyo intee dumar qawaaftoo qaraarkiisii baratoo markay qarash u waayeen qol udgoon karaysto gogol quruxsan fidiyo barkimooyin qaato faraha qaar casaysto qiiq udgoonna shidato qaar ugu tagaayo qayb loo jaraayo ku qayilay jirkoodii inna lillahi wa inna ilayhi baalku inuu qarriban yahay oo shay qaraar yahay qodob baad ku garataa waa kow neef qiimo weyn oo qarash adag ku kacayo qoys iyo ku filan labo ruuxii aad u qali lahayd iyo saaxiibkaaga qaaliya laan uu qaniiniyo qori waad u diiddaa qofna yuusan kugu arag baad guntiga ugu qarisaa maanta kaad ka qaaddee haddaan soo qadimayaa dhaar ugu qadiidana berri way iska qarisaayo qolqolkaad ka qayda allah macduru sheeg ubadkii qurxoonaa inay diinta qaataan qur-aankana dareershaan iyo qumanaasha laga rabay qashin habari tuurtiyo qurun bay carruurshaan adeer bacda qaada adiguna anna qori isii bay ku qarwaan habeenkii waa carruurta yaryar qaarna waxay yidhaahdaan habeenkan qaniinaan akhriyaa qur-aanko waaba quutul owliy anna waxaan baqirayaa qamradiiyo xashiishkaba inuu qodoba dheeryahay anaa kaaga markhaatiyo ninka qiil u haysto adigaan wax qarinayn qumaati aan u baarnee bal kitaabka soo qabo oo sukankeen adigoon qadaynoo aan quraacna helino qoyskiina wax u geyn qalqaaladaad helaysiyo qarash wixii ku soo mara qaadka aad ka bixisaa ma kuu quud xalaala mise waa qori dabliyo nar qori dabliyo nar alleelaha hore leela kolka aad qayiliya qaxwuu kuu diyaar yahay qolana aad u sheekeen karaamiga dhegaysee isla qiimo badano marka waagu qalac qaylshaan wadaadada qoyskiina wada koro qaab u toosi maysidoo weyse qaadan maysidoo wejigaaga diiq iyo qafil baa ku xidhanoo adigu waad qallibantoo odaad ku haysaa ninkan qaadka daynow adduunyada khasaariyo waa kuu qoomamiyo ciid aakhirana qarashkii qaadka aad ka bixisaa meel lagugu qorado waa qodob su'aaloo kugu sugi qiyaamaha ee taa qalbiga geli anna hadalku iga qoran wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa fariintan inay faafto oo gaarto dad badan waxaan rajaynayaa inay dad badan qayb qaadataan jecelahay aad iyo aad taal noqoto aad iyo aad baan u mahadsan tahay barnaamijka ololaha qaadiidna fariintaada waxay u noqon doontaa dhextaal insha Allah insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaah aragaagu waa noo cusub aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo waa mahadsan tahay qaadiid